السلام عليكم صاحبيال isku soo noqod wanaagsan insha Allah qaybtan waxay noqon doontaa qaybtii saddexaad ay noqon doontaa course-ka marka aynu ku baranaynay sida marka website-yada loo dhiso adigoo marka isticmaalaya WordPress-ka marka ugu wanaagsan ee marka website lagu dhiso ee loo yaqaano Elementor plugin. Okay, dabcan sa arkaysaan qaybta waxay noqon doontaa qaybtii saddexaad balse qaybtii koobaad oo introduction ka ahayd iyo qaybtii labaad aynu ku soo dhisanay yani design-kan dabcan aynu ku soo diyaarinay hore yani design-kan يعني intan wixii ka horeeyay aynu ku soo dhisnay waxaad ka soo daawan doontaa YouTube channel-ka ayaad galaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa playlist-ga markaa ku dhuftid kuwan dhan daawanaysid waxaad daawanaysaa playlist-ga ku qoran tahay WordPress Elementor free course marka playlist-gaas waxa ku jira course-ka markaa sida iskugu xigay qayb walba si markaa qaybta kale uga sareyso ee markaa iskugu xigaan haddaba soo daawo markaa haddii aad qaybtan saddexaad ka soo gaartay yani waxa jira qaybo kale oo kaa horeeya insha Allah halkaa ka soo daawo okay haddaba saaxiibayaal qaybtan waxaynu ku baran doonaa sida markaan u dhisi doono wax loo yaqaano dabcan sa arkayso sida design-kan oo kale loo diyaariyo dabcan sa arkayso design-kan oo kale inta badan waxaa loo yaqaanaa skills ayaa loo yaqaanaa qofka markaa yani ama website-ka aad samaynaysid markaa kusoo diraysid wax loo yaqaano skills okay sida qaybtan loo diyaariya dabcan insha Allah okay tusaalahan oo kale shakhsi baa waxa u diyaarinaysaa website waxaad rabtana yani aad kusoo ama company baa u diyaarinaysaa yani waxaad kusoo daraysaa qaybtan noocan oo kale skills-kooda ay qabanayaan ama shaqooyinka dadka u qabanayaan okay sida qaybta loo dhiso ku bari doonaa soo kale waxaan ku bari doonaa sidoo kale qaybtan sidoo kale loo dhiso design-kan muhiimadda ma aha inaad website-kan aad dhistid kaliya muhiimadda waxa weeye inaad fahantid website walba design-kiisa markaa aad samayn kartid soo kale waxaan ku baran doonaa kale isla qaybtan kalena waan ku baran doonaa isla qaybtan saddexaad aad ku baran doontaa insha Allah soo kale waxaad ku baran doontaa kale sida loo sameeyo waxa loo yaqaano يعني طبعا ساركسو صورنا وكله طبعا ساركسو تيم ayaa loo yaqaana yani team container oo kale sida marka loo sameeyo tusaalahan kale website mail company waxa sameynaysa yani website yani waxa ku leeyihiin team kaas ayaan wada shaqeynaa node team ama waxa tusaale waxyaabo badan baa soo kale waxa soo kale arday oo kale website ku soo bandhigay sidoo kale ardaydaas wax ka baratay oo kale design-ka for example ka soo qaanaysa waxyaabo badan ayaa markaa soo gashay laakiin kaliya muhiimadda waa inaad fahantaa oo website walba ku sameyn kartaa soo kale waxaan ku sameyn doonaa qaybtan oo baran doonaa sida marka loo dhiso question and answers oo kale inta badan company walba uu leeyahay question and answers tusaale kale maxaan ku bari doonaa kale course-ka aniga waxaan ku bari doonaa ardadii hore oo naga baratay hadda qaabkii u shaqeeyaan saasiyad macnaha muhiimadda waa inaad fahantaa insha Allah haddaba intaas option ayaad markaa course-ka qaybtan saddexaad ku baran doontaa hadduu alla insha Allah balse qaybihii kale haddii aan soo qaadan kasoo daawo playlist-ga marka yani WordPress Elementor free course ay ku qoran tahay insha Allah haddaba qaybtan saaxiibayaal aynu bilowna markaa soo kale saaxiibayaal haddii aad damacayad oo kale muuqaalkan hadda daawanaysid oo kale inaad la degtid ama muuqaal kasta oo markaa yani YouTube ah ama yani Facebook ah ama Instagram iyo TikTok to bilaa looga ah dabcan kaliya waxaad sameynaysaa calaamadda share ayaa taabanaysaa muuqaalka aad daawanaysid okay inta kadib koobi baad ahanaysaa kadib waxaad booqanaysaa website-kan markaa lagu magacaabo soo degso ayaad booqanaysaa inta kadib click baa siinaysaa dabcan sa arkayso kadibna markaa muuqaalkii aad markaa linkiisa soo qaadatay halkan kadibna halkan ayaa ku baast garanaysaa oo halkan ayaad baast garanaysaa ama halkan ayaad baast dhaysaa inta kadib download baad haysaa muuqaalkii kadibna saaxiibayaal saarkiisa muuqaalkii waa kaas inta kadib download baad haysaa ama halkan ayaad taabanaysaa kadibna download soo kale mobilkaaga kusoo degso oo markaa halka install ka soo dhaw mobilkaaga ayuu ku galayaa soo kale computer haddaad la soo degsatana halka hoose ayuu ku galayaa okay saa arkayso saaxiibayaal marka koowaad waxa aan sameynaynaa waxaan soo gashanaynaa container ayaan soo gashanaynaa click ayaan siinaynaa kan okay kan markaan saa u soo gashano inta kadib style baan tagaynaa style markaa tagno background baan sii tagaynaa background markaa sii tagno colorka ayaan markaa wax ka dhiganaynaa colorka hartada ka dhigan kartaa saa arkayso balse anu wax ka dhiganayaa colorkaas ayaan ka dhiganayaa inta kadib waxaan sameynayaa advanced baan tagayaa waxaan siinayaa markaa yani dhan walba waxaan siinayaa 15 baan dhan walba siinayaa saa arkayso 15 dhinac walba kasoo durug saa arkayso yani ayaan leeyahay 15 dhinac walba kasoo durug inta kadib waxaan leeyahay topka waxaan siinayaa halkan ayaan click siinayaa topka waxaan siinayaa 130 soo arkayso bottomkana waxaan siinayaa 120 inta kadib waxaan soo qaadanayaa saaxiibayaal text soo qaadanayaa text iyo soo qaad baan leeyahay waa soo barateen kadibna textiga yani style-keeda aad yani waa madow bay noqotay style baan ku laabanayaa kadibna waxaan leeyahay content baan ku laabanayaa center baan leeyahay soo arkayso inta kadib waxaan ku qoranayaa benefits ayaan ku qorayaa okay fartan soo qaadanayaa saa arkayso waan ku baast gareynayaa saa arkayso dhexdana inoo joogta inta kadib fartan waxaan siinayaa inay hoos wax yar ka durugto aan siinayaa maadaama aan hoos container soo gelin doono okay advanced baa tagayaa kadibna waxaan leenahay padding kadib waxaan leenahay 40 button-ka yani ka fogaato macnaha halkan hoos uga durugto inta kadib waxaan sameynayaa waxaan soo qaadanayaa container kale ayaan soo qaadanayaa halkan hoos ayaan dhigayaa containerkaas markaa waxaan sameynayaa kan ayaan taabanayaa saa arkayso soo kale containerkan waxaan leeyahay wax gaab ah u dhaxaysiinin zero ka wada dhig ayaan leenahay inta kadib waxa aan sameynayaa container kale ayaan markaa soo qaadanayaa aan hoos gelinayaa ku dhufanayaa yani sa arkayso hadda ma arkaysid containerka balse navigator-ka marka aan soo furo waa arki doontaa navigator-ka waa kana halkan hoose
okay saa arkayso marka hore containerkan waa kana containerkan marka waxaa ku hoos jira containerkan kale ayaa ku hoos jira okay containerna waa containerkan weeyaan dabcan saa arkayso containerkan marka text waan soo qaatay textida waa tana containerka kalena waa kana yani containerkana waxa ku hoos jira containerkan marka containerkaas waxaan u bixinaynaa cardis waan u bixinaynaa sidoo kale containerkana waxaan u bixinaynaa inner container baan u bixinaynaa inner container baan u bixinaynaa sidoo kale containerkana waxaan u bixinaynaa benefits baan u bixinaynaa saa arkayso benefits baan u bixinaynaa marka si isku jiraan ku dawaqin saas ay isku hoos jiraan haddaan click siiyo benefits waa kan yani titlekan containerkan weyn weeyaan saa arkayso text baa ku jira sidoo kale kana ku sii jira kana marka yani waxa ku sii jira kan cardiska marka kana kala copy garsanayna duplicate baan leenahay saa arkayso soddon u baxo kadibna waxaan leeyahay mar kale kadibna waxaan leeyahay duplicate baan leeyahay saa arkayso duplicate ayaan leeyahay okay iska tiraya inta kadib saa arkayso kan ayaa marka rabaa inaan marka quruxsado saylkiisa wax ka dhiganayaa background wax ka dhiganayaa weight baan ka dhiganayaa saa arkayso background weight baan ka dhigay soo kale advanced baan tagayaa waxaan ka dhiganayaa 50 ayaan dhinac walba ka dhiganayaa okay 50 ayaan dhinac walba ka dhigtay saa arkayso halkan ayaan click siinayaa 50 dhinac walba ka dhigo inta kadib waxa aan sameynayaa waxa aan soo gashanayaa icon ayaan qorayaa icon inta kadib iconka ayaan halkan soo gashanayaa saa arkayso iconkaas waan bedelayaa waxaan ka dhiganayaa people ayaan ka dhiganayaa okay saa arkayso okay inta kadib waxaan leeyahay insert aan dhahayaa okay saa arkayso iconkii waan bedelay still baan iconka intaan bedelin kor halkan defaultiga waxaan ka dhiganayaa stacked baan ka dhiganayaa saa marka loo yimaado arkaysaa yani inta kadib waxaan leeyahay still baan tagayaa kadibna backgroundkiisa waxaan ka dhigayaa maadaama madow uu yahay colorka marka website-ka aan ku waday balse waxaad dareemaysaa marka aan u soo dhawaado inuu noqonayo marka yani hover baan tagayaa kadibna waxaan leeyahay secondary aan imaanaya kadibna waxaan leeyahay weight ka dhig okay saa arkayso hadda isma bedelayo okay inta kadib maxaan sameynayaa waxaan soo qaadanayaa weli iconkii baan joogaa dabcan advanced baan tagayaa waxaan leeyahay buttonka yani maadaama halkan ay aad ciriiri ugu tahay inuu marka textiga aan hoos keeni doono inuu marka yani margin ahaan uu ka durko 10 ka durko okay saa arkayso 10 ayuu ka durko xogaa says ayuu shay inta kadib waxaan soo qaadanayaa text ayaan soo qaatay saa arkayso yani heading ayaan soo qaatay inta kadib waxa aan leeyahay waxa aan tagayaa qorayaa lane of experts ayaan qorayaa okay saa arkayso na bast garanaya balse waxaad dareemaysaa yani centerkan ay dhig baan leeyahay waxaad dareemaysaa qoraalkii inuu marka yani aad u waaweyn yahay marka saa arkayso yani fontidii colorkii aragno ay soo qaadatay laakiin hadda waxa ka badbaxsaas marka beddelayno typography aan tagaynaa typography marka tagna halkan waxa ka dhiganaynaa 24 ayaan ka dhiganaynaa okay saa arkayso hadda way noo hagaagsan tahay inta kadib waxaan sameynaynaa text aan soo qaadanaynaa text ayaan soo qaadanaynaa saa arkayso hoos ayaan hoos dhigaynaa textigaasna marka yani qoraalkan ayaa marka soo qaadanaynaa textigaasna qoraalkaas ayaan soo qaadanayaa saa arkayso textiga stylekiisa horta textiga aan ku bast garaysanaynaa aan wadanay stylekiisa waxaan leenahay noo dhigtaa centerka noo dhig saa arkayso okay inta kadib yani waan kala koob garaysanaynaa waxaan leenahay noo koob gar halkaas aad taanaysaa koobi dheh soo kale halkanna koobi dheh balse waxaad dareemaysaa weli ay kan containerkan iyo containerka inuu maran yahay marka haddaad saa tiraahdo inuu kaa dhigis kale isma dhici kartaa marka waxaa soo furtaa loo yaqaano navigatorka soo furo kan maran marka arag yani kan ay waxba ku jirin arag okay saa arkayso cardis waa kana kan waa maran yahay mpt way waan iska delete gareynayaa saa arkayso halkan hoos oo baxaysa kan hoos delete saa arkayso okay soo kale containerka ugu hooseeyo way saa arkayso mpt waa ku qoran waa kana mpt click baa siinaysaa kadibna waa iska delete gareynayaa okay saa arkayso sidii aan rabnay aynu noqonay balse hadda yani waxaan doonaynaa saddexdan ayaa noogu jira saddexdan marka waxaan doonaynaa yani kan oo kale kan iyo kan inaan balaa ka dhigno kan iyo kan inaan website-ka qaybtan background-ka yani containerkan weyn oo benefits inaan u ekeysino marka halkaas aan taabanaynaa kadib waxaan leenahay style kadib waxaan leenahay horta aan soo furano containerkii halkan aan soo furano navigatorka aan soo furano marka waxaan leenahay kan hadda joogno halkan inoo keen waxaan leenahay cardis waa kana hadda kaasaan joognaa cardiska waxaa ku jira iconkaas ku jira balse cardiska horta marka hore aan tagno marka stylekiisa waxaan ka dhiganaynaa okay inta kadib waxa aan sameynaynaa color baan tegaynaa kadibna waxaan leenahay basta aan sameynaa okay
saa arkayso marka iconka waa caadi balse headingka xamadaysa inuu yani madow noqday yani marka waxaan leenahay heading baan tegaynaa kadibna waxaan ka dhiganaa weight baan ka dhigaynaa sidoo kale textiga ayaa haddana ku dhufanaynaa textiga waxaa arkaysaa kadibna waxaan leenahay style tag kadibna waxaan dhahaynaa textigana waxaa ka dhigtaa weight ka dhig okay waxaan rajaynaynaa fahamtay insha allah sidoo kale waxaan imaanaynaa oo kale kan ayaan imaanaynaa saa arkaysa waa kaasa iconka ku jira sidoo kale cardska aan tegaynaa style baan tegaynaa saa arkayso style baan tegaynaa kadibna saa arkayso backgroundkiisa waa kana kadibna waxaan leenahay backgroundkaas nooga dhig sidoo kale iconka waa caadi textiga waxay nooga dhigtaa weight inooga dhig textiga weight inooga dhig sidoo kale text editorkan waxaa nooga dhigtaa weight inooga dhig balse waxaan rabnaa markii loo imaado waxaan rabnaa yani inuu caddaan noqdo ayaan doonaynaa markii saa loo imaado inuu hover noqdo click baan siinaynaa saa arkayso kadibna waxaan leenahay hover kadibna waxaan leenahay click baan siinaynaa kadibna waxaan leenahay background waxaan leenahay weight marka loo imaado inuu saa noqdo okay farta waan xallin doonaa yani farta yani waa dareemaysaa inaan la arkayn waa xallin doonaa sidoo kale kanna waa imaanaynaa click baan siinaynaa yani hoverkiisa ayaan ku dhufanaynaa kadibna waxaan leenahay classic kadibna waxaan leenahay halkan kasii kadibna okay marka waa update garaysanaynaa waxaan sameynaynaa code baan soo qaadanaynaa marka yani fartan yani aan ku habaysan doono yani dabcan waxaan tegaynaa advanced markaad tagtid yani qaybtan yani elementorka bes qaybtiisa la iibsada ayaa la custom css-ka balse xal ayaan u hayaa halka waxaan sameynaynaa horta waan update garaysanay waxaan ku laabanaynaa dashboardka wordpresskan ayaan ku laabanaynaa intaa kadib waxaan soo qaadanaynaa horta intaan tegin appearance baan tegaynaa appearance markaa tagno customize baan tegaynaa okay customize markaa tagno waxaan tegaynaa additional css halkay ku qoran tahay hoos baan u baxaynaa codekan waxaan idin kusoo diri doonaa zipka ayaan kusoo diri doonaa saa arkayso codekan stylekan codekan intaa kadib okay saa arkayso codekan ayaan soo qaadanaynaa halkan ayaan markaa ku baast garaynaynaa okay codekan saas ayaan ugu baast garaynay marka waxaan sameynaynaa info.inbox weeyaan marka stylekan ayaan ka saaraynaa stylekaas ayaan leedaynaa sidoo kale stylekanna waa delete garaynaynaa okay saa arkayso kadibna publish waan dhahaynaa intaa kadib waan ka laabanaynaa waxaan u laabanaynaa website-keenii pageski aan u laabanaynaa pro saa arkayso waa kana edit elementor intaa kadib saaxiib yaal waxaan sameynaynaa halkan hoose ayaan u laabanaynaa saa arkayso intaa kadib kan oo kale ayaan tegaynaa click baan siinaynaa classic advanced baan tegaynaa hoos baan u baxaynaa saa arkayso hoos baan u baxaynaa kadibna halkan waxaan ku qoraynaa info minus box marka qoro dabcan saa arkayso waa ka yani caadi maaha info minus box ayaan ku qoray dabcan waa ka caadi maaha sidoo kale kanna waa imaanayaa halkan ayaan click siinayaa saa arkayso advanced baan tegayaa intaa kadib halkan ayaan imaanayaa css classes info minus box okay dabcan markaan dul tago saa arkaysa waa ka caadi maaha intaa kadib saaxiib waxaan sameynaynaa qaybtii kale ayaan sameynaynaa oo kasii hooseysay ayaan sameynaynaa okay si markaa u sameynaa qaybtaas waxaan tegaynaa halkan ayaan tegaynaa plus baan taabanaynaa kadibna waxa aan leenahay containerkan kale ayaan sameynaynaa okay intaa kadib waxa aan sameynaynaa marka yani aan sameyno halkaas ayaan click siinaynaa click baa siinaysaa style oo kale waxa ka dhiganaysaa yani background oo kale waxa ka dhiganayaa of weight oo kale ayaan ka dhiganayaa backgroundkaas ayaan ka dhiganayaa saa arkayso intaa kadib yani backgroundkan hore ayaan markaa usoo gashtay intaa kadib waxaan sameynayaa advanced baa tegayaa advanced markaan tago waxaan ka dhiganayaa size-ka waxaan ka dhiganayaa hoos baan u baxnayaa paddingka waxaan ka dhiganayaa dhinaca walba horta waxa ka dhigtaa 15 ka dhig okay dhinaca walba 15 ka dhig intaa kadib waxaan leeyahay topka waxa ka dhigtaa 130 ka dhig bottomkana waxa ka dhiganayaa 160 ayaan ka dhiganayaa saa arkayso waxaan soo gashanayaa two container ayaan soo gashanayaa saa arkayso container ayaan markaa soo gashanayaa okay saa arkayso containerkaas ayaan soo gashtay intaa kadib waxaan sameynayaa containerkaas directiga saas ayaan leeyahay intaa kadib waxaan leeyahay waxaa dhigtaa center oo kale line item center oo kale intaa kadib waxaa sameynaysaa containerkan waxaa soo gelinaysaa container kale ayaa soo gelinaysaa saa arkayso click baa siinaysaa saa arkayso waa soo geliyay navigatorka ku arkaysaa markaas navigatorka ayaa ku arkaysaa saa arkayso hadda waxaan sameeyay containerkan saa arkayso containerkan waxaan soo geliyay containerkan kale containerkan waa containerkii weynaa weeyaan saa arkayso sidoo kale containerkan kale ayaan soo geliyay okay containerkan marka waan kala copy garaysanayaa oo duplicate baan dhahayaa saa arkayso laba ayay noqonayaan waxay noqonayaan lefty iyo waxay noqonayaan lefty iyo waxay noqonayaan iyo right ay noqonayaan saa arkayso okay intaa kadib waxaan sameynayaa kan oo kale waxaan siinayaa size baan siinayaa horta waxaan ka dhigayaa wax loo yaqaano full baan ka dhigayaa full width saa arkayso
يعني halkan waxaan siinayaa 55 baan siinaya soo arkayso kana waxaan siinayaa 50 full width aan leeyahay hadana waxaan siinayaa 45 ayaan siinayaa okay soo arkayso labadaas ayaan kala siiyay okay inta kadib waxa aan leeyahay dabcan waxa aan soo gelinayaa soo arkayso يعني containerka weyn waa kana containerka weyn ay ku jiraan inuu yahay soo arkayso direction okay saas way aadadeen inta kadib waxaan soo gelinayaa image baan soo gelinayaa soo arkayso halkan waxaan soo gelinayaa image ayaan soo gashanayaa soo arkayso image baan soo gashanayaa image kan kalena waan soo gashanayaa okay soo kale image kale saddexaadna waan soo gashanayaa okay saddex image aan soo gashtay inta kadib waxaa leedahay image kan koobaad ayaan kala gareynayaa soo arkayso oo upload baan dhahayaa okay image kaas ayaan soo gashtay soo kale markaa laba sawir oo kale oo yaryarna waan soo gashanaya yani sawirka weyn ii soo geli sawirkan weyn ii soo geli okay inta kadib waxaan leeyahay hoos sawirkan waan soo gashtay mid kalena waan soo gashanaya okay midkan kale ii soo geli okay soo arkayso sidaas ayaan sameeyay marka maxaan leeyahay imagekan advanced baan tagayaa soo arkayso waxaan leeyahay absolute iga dhig baan leeyahay absolute iga dhig baan leeyahay soo arkayso aan tagayaa position kadibna waxaan leeyahay absolute ka dhig soo arkayso halkaas ay markaa yani muhiimadeeda waxa weeye inaan markaa yani xaggan keeno saas ayaan dhahayaa soo arkayso inta kadib waxaan leeyahay waxa ka dhigtaa yani saas oo kale okay laakiin hal mid baan ilaaway waxaan sameynayaa yani kan waxaan siinayaa yani intaan sawirkan habeyn waxaan siinayaa containerkan waxaan siinayaa advanced baan tagayaa yani waxaan xaggan u durjiyo waxaan leeyahay kanaan furaya kadibna right-ka waxaan siinayaa 90 baan siinayaa soo arkayso 90 dhankan u durji baan leeyahay soo arkayso ka minus 40 yani halkan usoo durji baan leeyahay wax yar halkan usoo durji si markaan dhaho waxaan leeyahay hoos baan u baxayaa advanced image kan tagayaa horta image ku dhulfanaya image kan aan tagayaa inta kadib waxaan leeyahay hoos baan u baxayaa soo arkaysaan hoos baan u baxayaa inta kadib offset kan waxaan leeyahay waxa aan siisaa 30 si hoos u soo bixi soo kale yani wax kale ma sameyn size-ka ayaa dhankan wax yar ka siiyay wax kale ma sameyn kan ayaan size-ka halkan u soo durkiyay soo image ka halkan inoo gelin okay inta kadib waxaan sameynayaa kan ayaan hadana qabanayaa waxaan leeyahay advanced tag inta kadib waxaan leeyahay halkan hoose advanced markaan yani tagnay hoos baan leeyahay u soo bax position dooro absolute baan leenahay inta kadib waxa aan leenahay size-ka waxa ka dhigtaa yani qaybtan saas uga dhig dhanka kale waa inuu yimaadaa inta kadib waxaan leenahay halkan waxa ka dhigtaa minus 40 yani wax yar dhankan soo durji ka kala la siin wax yar saa ka dhig waxaan leenahay minus 40 soo kale hoosna waxaan leeyahay xogaa yani ka soo yar durji yani dhankan aan doonaynaa yani inaan targetkeena dhankan keeno aan leenahay 150 okay soo arkaysaan waa dhameynay inta kadib waxaan bilaabaynaa qaybtan kale ayaa markaa bilaabaynaa containerkan kale ayaa click siinaysaa saaxiib la arkaysaan right-ka soo arkaysaan markaan click siiyo waxaan leenahay containerkan kale markaan click siiyo waxaan leenahay gaabka waxa u dhaxaysiisaa 30 u dhaxaysiisi aan leenahay inta kadib waxa aan soo qaadanaynaa textigan soo qabo halkan ku paste garee inta kadib textigan waxaan leenahay saas ayaan u paste gareynaa style baan tegaynaa waxa rajaynaa fahanteen aad u fududahay left aan dooranaynaa soo arkaysa ama center aan dooran kartaa left aan dooranaynaa anaga inta kadib style baan tegaynaa style markaan tagna waxaan sameynaynaa halkan yani typography ee font farta nooceeda inoo tahay inta kadib waxaan sameynaynaa halkan waxaan ka dhiganaynaa fartan iyo state way noo cabiran tahay farta waa okay inta kadib waxaan sameynaynaa waxaan soo qaadanaynaa text caadi oo yar baan soo qaadanaynaa textigan baan soo qaadanaynaa yarta textigan yarta aan soo qaadanaynaa inta kadib halkan ayaan tegaynaa text yarta aan soo qaadanaynaa soo arkayso halkan hoose ayaan keenaynaa halka hoose ayaa keenaysaa dina textiga aad ku paste gareynaysaa soo arkayso style-ka wax walba inoo saxan tahay typography-ga soo arkayso typography oo kale way inoo saxan tahay soo kale waxaan ka dhiganaynaa 18 amal meelahaas ka dhiganaynaa aad bay noogu wanaagsan 17 okay inta kadib waxaan sameynaynaa waxaan soo qaadanaynaa icon list wax loo yaqaano icon list aan soo qaadanaynaa soo arkayso icon listiga halkan hoose ayaan keenaynaa soo arkayso inta kadib kan ayaan iska dhig gareynaynaa inta kadib iconka ayaan click siinaynaa iconkan ma doonayna waxaan leenahay check kan oo kale aan diraa ka saxdaa inta kadib waxaan sameynaynaa iconkaas oo kale waxaan rabnaa waan leenahay iconkaas oo kale waxaan ka bedelaynaa colorka style-ka aan hagaajinaynaa soo arkayso style-kan tegaynaa kadibna waxaan leenahay yani
inuu dhexeeya tusaale kale 14 amal 14 ka dhigayna soo kale yani horta content baan la imaanaynaa qoraal baan gelinaynaa soo arkayso soo kale style-ka ayaan tagaynaa style-ka yani soo arkayso space inta isku jirayaan weeye waxa ka dhiganaynaa 14 kale 14 inta kadib waxaan leenahay icon baan click siinaynaa soo arkayso iconka wuxuu noo yahay 14 kale balse waa weynayn kartaa hadda qaybtan ayaan qoranay marka waan kala copy garaysanayaa copy baan dhahayaa kadibna copy baan dhahayaa dabcan soo arkayso yani marka waxaan sameynayaa style baan tagayaa style markaan tago icon baan kusoo dhufanayaa iconka kale waxaan rabaa inaan color ka bedelo yani saas oo bedeli karaa balse colorkii aan haysto website-ka aan ku wada accent ayaan ka dhiganayaa inta kadib yani size-ka kale yani iconka waa weynayn kartaa waa yareyn kartaa soo arkayso balse waxaan ka dhiganayaa 20 oo kale aan ka dhiganayaa soo arkayso inta kadib waxaan sameynayaa farta aan ku dhufanayaa click aan siinayaa soo arkayso yani farta colorkeeda soo arkayso halkan oo kale yani aan ka dhiganayaa farta colorkeeda primary oo kale aan ka dhiganayaa soo arkayso farta colorkeeda saas oo noqonayaa balse secondary oo kale aad ka dhigtay yani farta aad bay wada mudanaysaa okay soo arkayso saaxiib inta kadib waxa aan sameynayaa oo kale waxa jirta yani hadaad markaa yani tagtid advanced oo kale hadaad tagtid yani aan dhahay style oo kale hadaad tagtid يعني gaar ahaan qaybtan yani farta soo arkayso yani inaad kala weynaysid yani marka yani aad waxaan ka dhigaynaa 14 ayaan ka dhigaynaa in farta kala durugto okay waxaan rajaynayaa insha Allah marka waxa aan sameyn doonaa qaybtan ayaa markaa kala copy gareynayaa haddaan navigator mar kale ayaan copy gareysanayaa kan sawirada ayaan ka bedelayaa navigator haddaan tago waxaa arkaysaa yani container kan inuu ku jiraan containerka weyna inay ku jiraan container kan okay marka copy ma dhahanaya duplicate baan dhahayaa dabcan soo arkayso markale ayuu markaa yani ii copy gareeyay inta kadib containerkan ayaan click siinayaa kadibna advanced baan tagayaa kadibna waxaan siinayaa margin ahaan ayaan siinayaa top 120 ayaan siinayaa oo kasoo durug baan leeyahay okay inta kadib waxaad arkaysaa containerkan haddaan navigatorka soo furo yani left iyo right inuu guda jiro marka leftigan soo qaadanayaa soo arkayso leftigan soo qaadanayaa halkaas ayaan keenayaa soo arkayso okay way isdoomarayaan dabcan saaxiib la soo arkayso inta kadib waxa aan sameynayaa oo kale يعني imageadan yani image weyn imagekan oo kale waan iska delete gareynayaa soo arkayso image marka ayaan soo gashanayaa kaas ma kan kalena waan ka delete gareynayaa okay inta kadib kanaan bedelaya okay inta kadib yani select baan dhahayaa soo arkayso imagekaas ayaan ku bedelay inta kadib waxa aan sameynayaa dabcan waxa aan sameynayaa imagekaas oo kale halkan ayaa marka yani waxaan rabaa maadaama yani haddaan click siiyo kan click siiyo answerkiisa soo arkayso lefty yani right kiisa ayaa dhinacan u durugsan yahay marka waan ka tirayaa oo marka leftigiisa ayaan marka u soo durjinayaa okay soo arkayso okay dhinacan u soo durjiyay soo kale qoraalkana marka yani qoraalkana aan ka tirayaa inta kadib waxaan sameynayaa halkan ayaan image soo gelinayaa hoose image soo gelinayaa soo kale waxaan soo gelinayaa image kalena waan soo gelinayaa image kalena waan soo gelinayaa okay inta kadib imagekan waxaan sameynayaa sawir baan soo gelinayaa soo arkayso kan ayaan soo gelinayaa soo arkayso okay inta kadib kana image kale ayaan soo gelinayaa okay kana soo gelinayaa okay select aan dhahayaa inta markaa sameeyo waxa aan sameynayaa imageka advance baa tagayaa horey baa u soo aragteen kadibna hoos baan u baxayaa soo arkayso hoos baan u baxayaa position baa tagayaa absolute baan dhahayaa okay imagekaas waxaan leeyahay waxaa ka dhigtaa tusaalahaan oo kale waxaa ka dhigtaa 140 iga dhig baan leeyahay 140 iga dhig baan leeyahay soo arkayso waan ka dhigtay soo kale waxa aan sameynayaa imageka labaad ayaan isagana soo gashan doonaa okay imageka labaad ayaan soo gashanayaa soo arkayso waa kana kadibna waxaan tagayaa advanced hoos baan u baxayaa kadibna default kadibna absolute baan leeyahay kadibna waxaan sameynayaa imagekaasna waxa ka dhigtaa yani aan leeyahay oo yani dan hoos u soo ka steady ka dhig baan leeyahay soo kale halkan hoose oo marka yani dhinaca ugu soo durkaan rabaa dhanka hoosena waxa iga dhigtaa 215 ama 200 oo kale 200 oo kale haddaan ka dhigo may hoos u gelaya 225 oo kale ka dhigaya okay waxaan rajeynayaa inaad fahanteen insha Allah saas ayaa marka yani tusaalahan kale hadda imagekaas oo kale yani kan oo kale aad igu soo durkay marka waxaan sameynayaa oo kale kan aan sheegay imagekan dan navigatorka soo furto navigatorka hadaan soo furto soo arkayso imageski waa kana soo arkayso midna waa kana midna waa kan midkaas oo kale waxaan sameyn karaa yani waxaan doonayaa yani inaan ka dhigo laba qof oo yani lala hadlayo oo kale yani soo arkayso saas baan kala dhexaysiin karaa okay saaxiib bal soo arkaysaan waan dhamaynay qaybtaas
ما شاء الله صاحب بل وانا soo dhameynay qaybihii kale dabcan wax rajinay fadhi waxaan maaha inaad iska samaysid waa inaad fahantaa waxa muhiimadda ay leedahay inaad website walba marka aragtid aad fahantid sectionska iyo qaabka loo kala dhigay okay hadda waxaan sameynaa qaybihii u dambeeyay sameynaa direction kan ayaan soo qaadanaa column kan inta kadib waxaan tegaynaa style baan tegaynaa background baan tegaynaa kadibna backgroundkiisa wax ka dhigaynaa weight ayaan ka dhigaynaa settingskiisa advancedkiisa ayaan tegaynaa kadibna waxaan leenahay dhinac walba waxay ka gelaysaa 15 ka geli inta kadib waa ka dhinac walba 15 baa laga geliyay inta kadib waxaan leenahay topka waxaad ka dhigtaa 130 ka dhig okay 130 ka dhig soo kale bottonkana waxaan gelisaa 70 geli ayaan leenahay saarkayso okay waa soo gelinay inta kadib waxaan leenahay saaxiibayaal waxaan leenahay header noo soo geli headerka markaa yani textigaas inoogu qor centerka inoo dhig sidoo kale waxaan leenahay advanced tag advanced markaa tagtid yani textigan waxaan rabnaa inaan qoraal hoos yani uga durugto yani inta kadib waxaan leenahay padding waxaan leenahay 40 yani sida caadada noo ahayd 40 baan gelinaynaa saarkayso bottonka inta kadib waxaan sameynaa container baan soo qaadanaynaa waa barateen containerkaas soo qaadanaynaa containerka markaa soo qaadanaynaa waxaan sameynaa containerka directionkiisa saas markaa yani file u geli baan leenahay soo kale centerkana dhig okay inta kadib waxaan soo qaadanaa wax loo yaqaano image box wax loo yaqaano soo qaadanaynaa image box kaas soo qaadanaynaa imageka markaa yani sawir baa soo gashanaa tusaale kale sawirkaas soo gashanaynaa saarkayso saabta channelka subscribe saara muuqaalka like saara inta kadib waxaan sameynaa yani halkan oo kale waxaan qorayaa Yasir okay yaad waradaan weeyeen Yasir marketer oo kale inta kadib halkan dan qoro waxaan qorayaa web developer markaas yani weynaatay arkaysaa yani waxa loo yaqaano textigan inay weynaato arkaysaa textigan inay weynaato arkaysaa marka waxaan sameynaynaa style baan tegaynaa style markaan tagno content baa tegaynaa marka qoran tahay content markaan tagno waxaan tegaynaa typography markaan tagno waxaan sameynaynaa halkan waxaan ka dhigaynaa 48 default ahaan inoo ah ka soo dhignay markii global paint soo habeenaynay saas ka dhigaynaa inta kadib waxaan sameynaynaa marka saaxiibayaal waa copy garaysanaynaa marka dhowr mar baan copy garaysanaynaa navigator baan tegaynaa saa arkayso image box waa kana dhowr mar ayaan waxaan leenahay duplicate soo kale marka waxaan leenahay duplicate soo kale marka waxaan leenahay duplicate okay saa arkayso waa kaas ayaan copy garaysanay balse waxaan ku baashaalaynaa hadda kan oo quruxsanaynaa stylekiisa aan tegaynaa hadda kan aan joognaa image ayaan ku dhufanaynaa kadibna halkan oo kale waxaan leenahay yani intuu markaa qoraalka u jiro waxaan leenahay wax ka dhigtaa 5 ka dhig baan leenahay pageka inta ka dhig baan dhiri saaxiib balse intuu u jiro qoraalka inta kadib waxaan leenahay borderka waxaan leenahay solid baan rabnaa baan leenahay inta kadib waxaan siinaynaa dhinac walba waxaan siinaynaa oo left iyo right ka ah 40 baan siinaynaa 40 baan dhanka siinay dhanka kalena waxaan siinay 40 ayaan siinay okay inta kadib waxaan sameynaynaa waxaan u baxaynaa hoos waan u baxaynaa saarkayso hoverkan ayaan u baxaynaa hover markaan u baxno dabcan saaxiib la saarkayso waxaan leenahay waxa ka dhigtaa 0.95 ama 0.95 oo kale ka dhig okay inta kadib waxaan baxaynaa content-iga marka aan soo habaysanay marka yani naga dhiman ma laha content-iga waa noo diyaarsan yahay balse waxaan sameynaynaa halkan ay qoran tahay kor baan u baxaynaa image-kan soo furaynaa soo arkaysaan image-ku aad buu yar yahay widthkiisa 100 baa ka dhigaynaa balse waxaa arkaysaa inay geestaa waxay nooga jiraan marka yani halkan border color-ka ayaan click siinaynaa ka dhigaynaa way okay style-kii ayaan markaa copy garaysanaynaa copy ayaan leenahay style-ka ayaan kan ku paste garaynaynaa paste style baan leenahay soo kale kana waxaan leenahay paste style baan leenahay soo kale waxaan leenahay kana paste style baan leenahay soo kale kana waxaan leenahay paste style ayaan leenahay okay waxaan rajaynaynaa fahantay insha Allah si qurux badan ayaan u samaysanaa marka inta kadib waxaan sameynaa kan ayaan marka yani tegaynaa marka tagna waxaan leenahay advanced ayaan tegaynaa aan dhahay containerka ayaan tegaynaa containerka guud ayaan tegayaa containerka guud haddaad navigatorka furto waxaa arkaysaa waxaan oo dhan inaan headerka ilaa containerkan kale ilaa waxaan oo dhan inay containerkan ay tegaynaa inay containerka guud ku jiraan balse kuwan image boxyadan ilaa intay gaarayaan ilaa waxa weeye 1 2 3 4 waa 2 iyo 2 afarta container wax ku jiraan containerkan ay ku jiraan marka containerkaas waxaan sameynaynaa hoos baan u baxaynaa waxaa arkaysaa inay gaab badan isku jiraan yani isku jiraan hadda yani haddaad ka dhigtid oo kale content oo kale haddaad ka dhigtid gaab aad u badan bay isku jiraan marka waxaan leenahay ka dhigtaa yani gaabkiina 6 ka dhiga sireeya aan leenahay kan paste style aan ku dhahno okay gaabkiina intaa ha isku jirsaan baa leenahay okay saa arkayso hadda marka aan noo jiro 1 2 3 4 okay kan ayaan ku dhufanaynaa click baan siinaynaa saa arkayso advanced baan tegaynaa inta kadib advanced markaa tagno waxaa arkaysaa halkan ay ku qoran tahay custom width okay custom width oo kale waxaan leenahay custom ayaan leenahay marka waxaan siinaynaa 20 ayaan siinaynaa dhinac walba 20 ayaan siinaynaa aad baa u yaraynaynaa okay 20 waan siinay inta kadib waxaan leenahay kuwa hoose ha u jirsadaan yani padding fiican ha u jirsadaan yani okay tusaale kale kuwa hoose waxaan leenahay bottomyada hoose 40 ha u jirsadaan okay baan click siino ama yani aan hadda aan copy aan dhaho gadaal baan ka tustoona copy aan dhaho intaan copy dhiin waxaan ku tusinayaa wax loo yaqaano
inaan marka yani aan naqshad u samayno loo yaqaano transform baa tegaynaa kadibna marka yani hover ayaan tegaynaa skew halkii qoranta ayaan kala garaynaynaa sa arkayso kadibna waxaan ka dhiganaynaa halkan oo kale 5 baan ka dhiganaynaa tusaalahan kale marka la dul tago yani saas ayuu noqonayaa sa arkayso waxaan samayn karnaa oo kale halkan aan tegaynaa sa arkayso kan hadda joogno waa kaas kanaan iska delete garaynaynaa sa arkayso delete baan dhahayna kuwa kale oo dhan waa iska delete garaynaynaa okay kayagii waa kaasa kan kor haddana waa delete garaynaynaa sa arkayso delete baan dhahaynaa waxaa noo soo haray kan kale kan ayaa noo saaray marka kan copy baan dhahanaynaa stylekiisa copy ayaan dhahanaynaa balse kan ayaan ku paste garaynaa paste style ayaan dhahaynaa sa arkayso okay aadin maaha intaa kadib waxaan samaynaynaa saaxiibayaal waan kala copy garaynaynaa waan badinaynaa yani duplicate baan dhahaynaa sidoo kale waxaan leenahay haddana more duplicate haddana duplicate dhowr mid baa kala duplicate garaynaynaa okay waxaad arkaysaa yani aad inay marka yani sidaas inay u taxmeen marka cilada jirta waxa weeyaan waxaan doonaynaa in qayb hoos imaadaan ayaan doonaynaa marka yani si qayb hoos imaadaan waxaan leenahay navigator baan leenahay container ku jira ayaan tegaynaa container ku jira markaan tagana halkan hoos ayaan u baxaynaa layout halkan ugu hooseysa sa arkayso halkan ugu hooseysa wuxuu taagan yahay hadda no wrap ayuu taagan yahay wrap ayaan ka dhigaynaa sa arkayso sidaas ayaan ka dhignay intaa kadib waxaan leenahay oo kale waxa aad dareemaysaa oo kale yani hadda haddaan mar kale duplicate ahno sa arkayso duplicate sidoo kale more duplicate waxaa arkaysaa inay yani dhankan usoo bateen dhankan caqabada ka jirta waxa weeyaan horta containerka toos u tegaynaa containerka markaan tagno waxaa arkaysaa layoutka halkan ay qoran tahay sa arkaysto centerkay wada tegayaan end ay wada tegayaan space between annaga waxaan rabnaa space between ayaan rabnaa ama yani sidan oo kale yani space around oo kale ayaan doonaynaa oo kale ayaan ugu fiican okay waxaa leedahay waxaad tegaysaa yani imageka yani waxaad moodaysaa inay isku dhowiin marka waxaad tegaysaa advanced aad tegaysaa buttonkaad tegaysaa kadibna waxaad leedahay 20 meelahaas ka durkeen ama 40 meelahaas hoos uga durkeen copy baa dhahanaysaa kulliga kuwa wada paste garanaysaa copy paste style aad dhahaysaa sa arkayso ka durkay kana paste style baa dhahaysaa kana paste style baa dhahanaysaa kana paste style baa dhahanaysaa sa arkayso may kana hadda yani gadaal yani waxay uga durkaan ba ma jirto marka imageyada ayay kala bedelaysaa imageyada ayaan kala bedeli doonaa sidoo kale yani waxaad bedelaysaa qoraalada sidoo kale waxaad soo gashanaysaa sidoo kale kana kale kaas okay saaxiibayaal sa arkaysaan structure-kan waan dhamaystay dabcan anigoo markaa sawiradii bedelay structure kale ayaan bilaabayaa containerkan kale kadibna direction column ayaan dooranayaa intaa kadib dabcan waynu isla soo aragnay waynu soo barannay style baan tegayaa waxaan dooranayaa yani okay intaa kadib advanced baan tegayaa waxaan leeyahay dhankan waxaad ii gelisaa yani dhinac walba horta yani aan leeyahay baadin ahaan dhinac walba waxaad ii gelisaa 15 geli ayaan leeyahay intaa kadib markaasaa dha waxaan leeyahay topka waxaad gelisaa 120 ii geli ayaan leeyahay dabcan sa arkayso intaa kadib yani 120 baan leeyahay intaa kadib waxaan leeyahay bottonkana waxaad gelisaa 130 xirfyadana 15 kasoo durug okay labadan left iyo right ka intaa kadib waxaan sameynayaa text ayaan soo gashanayaa dabcan saaxiib la arkayso textigaas waxaan yani qoraal ayaan gashanayaa qoraalkaasna waxaan leeyahay centerka idhiga ayaan leeyahay qoraalkaas waxaan leeyahay yani button baadin ahaan ama yani hoos waxaad uga durugtaa 40 inuu ka durko 40 baan ka durkay intaa kadib waxaan soo qaadanayaa loo yaqaan accordion ayaan soo qaadanaa dabcan waa kana accordion sa arkayso okay intaa kadib waxa aan leeyahay accordionka kana iska delete garanayaa intaa kadib yani kan qoraalka ayaan bedelayaa qoraaladan soo qaadanayaa sa arkayso accordionka waxa loo sameeyaa kambaniyada ayaa loo sameeyaa kambaniyada yani waa su'aal iyo jawaabo weeyaan yani anoo kambanigana waxa maxaas ku qabtaa qofka su'aal ku taagan oo kale okay dabcan sa arkayso title-ka waxa ka dhiganayaa saas soo kale yani soo kale questionka jawaabteedana waxaan ka dhiganayaa tusaalahan oo kale waxa weeyaan waxaanu sidee ayaanu graphic design ku bari karnaa oo kale waxaanu ku barin intaa kadib waxaan rajaynayaa ila fahanteen waan kala copy garaysanayaa ilaa iyo 4 jeer 3 mar ayaan marayaa hadda ilaa 4 jeer ayaan copy garaystay sa arkayso dabcan sa arkayso pluskan ma doonayo minuskan markaas la dhaho dabcan sa arkayso plusyadan ma doonayno plus anagu rabno ayaan soo qaadanaynaa all icons ayaan tegayaa intaa kadib pluskan ayaan soo qaadanayaa aadka decorationka u fiican intaa kadib insert baan dhahayaa dabcan sa arkayso soo kala minuskana iska bedelayaa minus kale aan markaani ayaan soo qaadanayaa okay waxaan dooranayaa minuskan sida u wareegsan okay intaa kadib insert baan dhahayaa okay intaa kadib waxaan tagayaa saaxiibayaal style-ki qoran tahay okay halkan waxaan ka dhiganayaa background-ka black baan ka dhiganayaa oo kale primer ayaan ka dhiganayaa intaa kadib haddaan yani aan weyneeyo sa arkayso yani background-ku yani aad bay marka yani rectangle camal buu noqonaya laakiin waxaan ka dhiganayaa halkan 1 ayaan ka dhigayaa okay intaa kadib title-kaan imaanaya active color-ka waxaan ka dhiganayaa saaxiibayaal sa arkayso primer ayaan ka dhiganayaa okay intaa kadib waxa aan sameynayaa typography ayaan tegayaa typography markaan tago waxaan sameynayaa hoos baan u baxayaa
fartu aad bay nooga waaweynta marka waxaan ka dhiganayaa farta 24 baan ka dhiganayaa dabcan fartu saasay u yeelaatay intaa kadib waxaan sameynayaa hoos haddaan usii baxo waxaad arkaysaa yani spacing iyo waxyaabahaas kale wax kalama taabanayo intaa kadib waxaan sameynayaa farta waxaan rabaa inaan halkan wax yarsaa uga durjiyo marka dhinac walba waxaan siinayaa 24 ayaan siinayaa saa arkayso 24 dhankan ayay markaa kasoo durkaysaa yani dhankan saas uga soo durkaya saa arkayso sidoo kale halkan leftida waxaan siinayaa si gaar ah waxaan u siinayaa 50 ayaan siinayaa oo ay kasoo durugtay dhankan ayay markaa kasoo durugtay saa arkayso okay sidoo kale waxaa soo hartay halkan markaa yani textidoo kale saa arkayso marka yani textidoo kale saa arkayso yani waxaa arkaysaa textida inay halkan aad u jirto marka textida iyadana waa soo durjinaynaa waxaan sameynaynaa content baan tegaynaa content markaa tagno iyadana waxaan sameynaynaa 24 baan dhinac walba kasoo durjinaynaa saa arkayso intaa kadib 50 baan dhinacan markaa ka durjinaynaa okay saa arkayso fartiina dhinacan markaa yani dhinac walba waxaan kasoo durkinay 24 baan kasoo durkinay ilaa yani dhankan leftigana 50 baan kasoo durkinay dabcan saa arkayso intaa kadib icon baan tegaynaa iconka active colorka meesha yani halkan active colorka yani saa arkayso halkan waxaan ka dhiganaynaa active yani colorka waxaan ka dhiganaynaa dabcan sidaas ayaan ka dhiganaynaa dabcan saa arkayso okay sidoo kale colorka caadigana waxaan ka dhiganaynaa primary ayaan ka dhiganaynaa okay saa arkayso okay yani markuu markaa u furo markuu soo u furo waa casaan markuu markaa saa u xirana okay intaa kadib waxaan sameynaynaa advanced baan tegaynaa advanced markaa tagno waxaan sameynaynaa halkan ay ku qoran tahay width ayaan ka dhiganaynaa custom kadibna waxaan ka dhiganaynaa yani halkan waxaan ka gelinaynaa 80 ayaan gashanaynaa saa arkayso 80 okay yani طبعا هذا تاس aad bay nooga dheeraanaysaa macnaha baashan naga dheeraanaysaa dabcan saa arkayso marka waxaan leenahay waxaan nooga dhigtaa 80 inooga dhig baan leenahay intaa kadib waxaan leenahay centerka inaan gaarsiinaa rabnaa centerka inoo gey baan leenahay waa kaasaa dabcan saaxiibayaal waa dhameynay yani wax loogu talagalay question iyo su'aalaha company ayaa loogu talagalay in su'aalaha iyo jawaabaha companiyada dhan baa company walba waa u leeyahay marka hadda contentigaan bedelayaa contentiga marka yani contentiga ayaan iska bedelayaa dabcan saa arkayso okay contentigan oo kale aan bedelayaa okay contentiga saa u bedelaysa kana kala ku dhufanaysaa okay click baa siinaysaa content baa tegaysaa horta kana ayaa tegaysaa okay title kan ka bedelayaa saa arkayso kan horta aan tago kan waa kii koobaad kana waa kii labaad aan saa arkayso marka title-kiisa aan bedelayaa okay waan bedelay saa arkayso kan okay kana waan bedeshay marka website-ka u sameynayso sidaas ay marka u dhisan karinaysaa